kormeelisaa amnigiinta arrimaha bulshada fiirseen odayaasha dhalinyarada saxafiyiinta kulli waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi maanta waa maalin weyn oo annaga aad noogu weyn haddii aan nahay haweenka gobolka hiiraan waxaan leenahay haweenka meel kasta ay joogaan ha jiraan hooyo waxay soo martay dhib badan dhowr iyo 20 sano ka dowlad la-aan oo burburka ahayd hooyo ilmaha ayaga korinaysay waa ognahay hooyo waxay qabatay shaqooyin aysan ka qaban karin hooyo waa hooyo waxaan leenahay meel kasta ha joogto jannada ilaahay ha dambeeyey hooyo waxa waaye maanta waxa jiro dagaalada baxadda waa muujinaynaa laakiin caloosheena nadiif maahan waxaa jira maamooyin geedaha hoostooda gaajo ugu dhimanayo waxaa jira ilmo yaryar oo baahi iyo oon la dhimanayo adduunyada dacaladeedana joogo waa dabaaldagaynaa maalintii waa ugu weyn tahay laakiin annaga niyaddeena iyo qalbigeena ilaahay ayaa marka waxaan leenahay haweenka meel kasta ay joogaan inay jiraan inay gabdhaha isqabsadaan in ay midda baahan ku gurmadaan in ay ilmaha yararka oo waxba haysanin oo waalidkooda waxba haynin waxbarasho midda awoodda inay ka bixiso haweenka dunida dacaladooda jooga maanta waxaan leeyahay inay garab qabsado oo la qabsado oo midii walaasheeda oo baahan aan u qabano midii dhibaataysan oo abaaraha hayaan aan u gurmano halkooda waxba lagama dhibayso ayadana waxbay u taraysaa inta wax haysato waxaan leeyahay in aan gurmano aan isfogaanino aan wixii awooddeena isku darno aan gabdhaha baadiyada joogo u baahan oo walaalaheed aan ku barno guddiga abaarahana si degdega aragta waa in loo dhisaa kii gobolka hiiraana waa la dhisaaya kii hirshabeellana waa la dhisaaya insha allah waa loo gurganayaa waxaan leenahay dowladda soomaaliya weli sida muxuuha waajibigeena xorgeynta gobolka wax dhaqaalaha oo abaaraha ka soo gaaray gobolka ku jiraan waa bogaadinaynaa ayagana in gobolada kale ay qaateen haddana aan waxba haynin in abaaraha laga soo gaaro meel walbo la joogo degdeg loogu soo gudbado ummadda waa dhaqaantay ummadda aad abaarta aan ayaa u hayso dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in abaaraha aad ay xooga u saarto way shaqaynaysaa shaqadeeda inay la badbaarto haweenka meel kasta ay joogaan inay isku soo gurmadaan ilaahayna laga baqo wixii lahaayaan ummadda la siiyo intaan awoodin la awoodin inta awoodaan wax ka kala dhigaysa aan isku dhimaan haweenka reer hiiraan meel kasta ay joogaan inay isku yimaadaan ay dadka abaaraha haayo ay u gurmadaan intaasaan bogaadinaya waxay samayn jireen inay qaamka guud iyo meelka guud ay ku tusaan halka haweenka laakiin maanta waa ku faraxsanahay in si guud ay ugu tuseen maalinta ay halkan isugu yimaadeen taas waxaa leeyahay waay nibada guusha aad gaartay haweenka gobolka hiiraan ku yaareen madaxiban waa nibka istaagayna insha allahu tacaala haweenka waa dadka ugu wada adeegay inay bulshada u istaagaan mid haddii ay dhimanayo iyo haddii ay qaadayo waxan waa hooyo marka inaad dad istaagtaan and continue to support the people of Somalia through the women. While some progress have been made in Somalia, such as the increase of women's representation in the Somali parliament, in reality, Somali women and girls continue to experience a life different than that of Somali women and boys on issues such as access, education, jobs, and other economic opportunities, participation in political and social engagement, and protection of human rights and dignity. The empowerment of Somali women and the narrowing of gender gaps is critical for securing peace, the form of reconciliation, stability, and economic growth in Somalia. Indeed, where men and women have equal rights, communities prosper. Therefore, as we celebrate International Women's Day, I want to say again that there is an important role for women in Somalia in Somalia's future, including participation in important political, social, and economic issues and activities. I strongly encourage you to take advantage of these opportunities to advance gender equality. Thank you, thank you, thank you. Happy Women's Day!
sida maalinta hooyooyinka, maalinta caafimaadka, maalinta faraxashada, maalmaha gaarka ah ee weliga waxay rabaa inaan bulshada la wadaago inta aan ka amaano maanta oo kale dowladdeeda wax kale maahan waxa weeyaan in la isxasuusiyo inay hooyada Soomaaliyeed ay leedahay qiimo inta qofka halkan isugu imaatay maanta waxa dhashay hooyo ayaa soo barbaarisay hooyo ayaa dhib iyo dhibaato ka soo martay maantana waxaan iska dhigaynaa qof weyn oo iibisan islana fiican waxaan iska soo qaadaa anigoo kale waxaa magacayga lagu yaraa Maryam Xasan waxaana qof aad u cudub badan oo dharkaa wato laakiin ma garan karo hooyada dhibaatada iga soo martay iyo marxaladaha kala duwan marka maanta dowladdeedana waxa waaye in dad badan ay xasuustaan inay hooyada muhiimadda koowaad ay leedahay xaqiiqatan hooyada Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhibaatooyinka ugu badan maanta ayada ayay haysataa xagga dagaalada abaaraha dhan kasta waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed markii saxaafadda kala la fiiriyo inta badan aabaha lama hadlo aabana lama waraysto saxaafadda inta badan aabaha ma waraysato waxaa hooyada loo waraysanaa waxa weeye inay ka calool fiican tahay aabaha aabuhu inkastoo carruurtiisa jecel yahay laakiin sida khaasatan boqolkiiba boqol waxaa ubadka daryeela ama ubadka barbaariyo waa hooyada haddaysan hooyo jirin xaqiiqatan intaa qofka meesha iskuguna imaateen dhammaanteen waxaan laga rabaa inaan u istaagno maanta muhiimadda ay leedahay ee hooyada Soomaaliyeed waxaa rabaa fariin dheer inaan gaarsiiyo dowladda Soomaaliyeed meel kastay joogto madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ugu sarreeya waddanka abaar aad u badan ayaa ka jirto saameynta ugu badan waxay haysataa hooyada iyo carruurta waxaa laga doonayaa in loo gargaaro hooyada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto rag badan ayaa waxay ka hadlaan in dumarka u dagaalamaya xilka inay qabtaan si kale inay u fahmaan hooyada Soomaaliyeed waxay xilka u raadin wax kale maaha waxay ogtahay dhibaatada sidii looga bixi lahaa iyo marxaladaha ay ku jiro carruurta marka aad baa Orise weeyaane geesiyada Afrika iyo raggan ummadda duulaya ayadaa xambaarto walla hooyo soo tiriyey ayadaa xambaarto walla hooyo soo tiriyey hawada sarraysiyo ninkaas samada duulaya ee diyaaradaha soo dirta waddan iyo meelmeega ayadaa soo harayso walla hooyo soo tiriyey ilaahay hadda ayay umura hadalka kii doona أنفق كذا وهو ويعيد الكيمة أنا أراني تاقية من كوية لأبتنا وأفضل قهوة وهو الدريدة تيدارة أنفق كذا ويعيس المرواني حتى وحيد على تبع بيك كيستا كان كذا سنجي أنفق التنية حرم كويناية مقدر يالم ويعيد الكيتا نفري إلى الجلالماية أبال كين أنكشا ولا وقنوة مولي إلهي مدى يأمورا هذا الكتيدارة hooyadayni gacana intaa dunida ku joogto halis iyo dhib kuma helaan iyo cudur ku gaadhaaye dhibku maarmo weeye hooyay bal kori hanaankaaga kolkaad geeriyootana ha gelin guriga naareede deriska iyo asxaabta iyo allow jannada kuu noori oo nabad barwaaqiyo allow jannada kuu noori saarayda jibta hadda ka socota madaxweynihii waxa ayaa ka socota marka maanta waa maalin weyn waxaan leedahay anaa ka socda ciidanka amisom jibuuti iyo amisom guud ahaan gobolka hiiraan iyo sekretar fadl anaa ka socda waxaan leedahay gabdhada muslim dowladda dowladda intaa waxaa baday hooyada raalka usaahay iyo kaalinta kula jirtay bulshada ilaa iyo 25 sanadood burburkii dowladii dhexe Soomaaliya hadday haweenku kaalintaas ay ciidan Soomaaliya dhexdeeda xagga dhaqaalaha iskaba carruurta waxaa soo sameeyeen waa haweenka Soomaaliya marka haweenka Soomaaliya loo leeyihiin Soomaaliya waxa hadda soo gaarsiiyey dowladda soo gaarsiiyey waxaa laga tagaa waa haweenka marka waxay leedahay howlkaas ay yarteen idinka badbaadisay amada weyn waxaa ku jiray qofka fikirka oo ah
وصلنا ما كنا وطلع الجمرة والبادية كلها البادية يا غير سكرك أو يا طبعا ما تقطع أو هلين واحد طلع العمود وأبيك أقول يا بس وإذا سكرك أقول واحد كاوين حكومة الرجال سواء الرجال واحد غير أبا من يقول هو كل حكومة الرجال أسود ولكن هذا الرجل في سيد الرجال السوداني واحد مرة الفارق والقرار بنا سير صوصة السندر صوصة فبقى لهم أوقات الصوماليين يعودون تقولون هنا يدير شغله وحمس مديننا رغم يعمل سلطاننا مبالغ حضرتك كبير كمارسو معلمة كلية هوايك معلمة هواك مرة أنتو سيئنا إلا الله مرة هوايك كارين أدوى نقول كوجينا يوم يوجد الإنسان يوفي معك وحن تقول الدارنا يا إن أنا تكلس وطيبتي كريم حفلتها معك وهي وحن بتكلينا يا وقت قرار وطيب قرامات من الحريم والمليون هو صار صار كبوي هاي تعبير تدق الصوماليات خاصة الجمرة الكتب سنة كمالين تعبير تقول كياها إن يجب الكلام وقوق سمان يحد جنسية لغوة في صدقه إنك الصحة ومرمى يدرك عليك Somalia sida tiro badan oo dumar oo lagu soo kala baahanka ahaantii dumarka Soomaaliyeed gabdhaha ayaa sii marin kara noloshooda ku aadan tababarka iyo wiilasha si ay u helaan fursado xagga waxbarashada shaqooyinka fursadaha qaybgalayaasha siyaasadda wada xaajoodyada iyo xuquuqdisaanka dumarka awood ay siinayaan si kastaba ha ahaatee waa in aan u dabaaldegnaa maalinta haweenka dunida waxaana rabnaa in aan mar labaad sheegno muhiimadda ay u leedahay dumarka Soomaaliyeed maalinta